بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد السلام ومركل يوم قالدين تحنا هاي عافيمات كبلشدة أو أي نتوات كان كجهل دونه فائدين كلايه لعبست بيها شذا كلا وحن كهل دونا عذرة يدباتوين كلايه كدلان كرو هادي وجرك جوهلي ويبياكو فلان قدر كبيها أدعبتو مالين كستو وحو دور مهمة كعيارة إلى لين تعافيمات كجركاga raggu waa inay cabaan biyo dhan 3 litir una dhiganta 13 koob oo biyo ah maalinkii. dumarkan waa inay cabaan 2.5 litir oo biyo ah una dhiganta 9 koob oo biyo ah maalinkii. biyuhu waxay ka hortagaan calool xanuunka iyo calool xiranka waxayna ka dhigaan dheefshiidka mid caafimaad qaba oo habsami u gata shaqadii dheefshiidka. biyaha wuxuu dheelitiraa dheecaanada jirka ku jira. dheecaanada ugu muhiimsan jirka ee laga sameeyo biyaha waxay ka qayb qaataan dheefshiidka, dhuuqista cunada, wareega dhiiga, sameynta caliyada, xambaaridda walxaha nafaqada. si jirka loo gaarsiiyo biyaha waxay ka qayb qaataan kontaroolka tamarta jirka. sidoo kale biyaha la cabo waxay jirka ka caawiyaan inay nadiifiyaan dheefshiidka iyo xubnaha jirka oo dhan. qayb waliba waxay u baxaan si noocyo badan oo ay ka mid tahay kaadi, saxaro iyo dhidid. biyo badan oo aad cabto waxay dhisaan murqahaaga. unugyada murqaha waa muhiim inay helaan biyo ku filan si ay shaqada joogtada ah u wadaan oo ah inay jirka dhaqaajiyaan qaybihiisa kala duwan. biyuhu waxay aad u caawiyaan shaqada keliyaha oo waxay jirka ka saaraan wasaqda iyagoo geeya keliyaha waxayna ka shaqeysiyaan qaybaha kala duwan ee keliyaha. in biyo badan uu cabo qofka waxay u fiican tahay jirkiisa oo waxay ka hortagaan korqaleelka oo aakhirkii oo ku dhamaado inuu jirka jeexjeexma ama laablaab ku imaado qofka asiga uu da u noqon. biyo badan oo la cabo waxay ka caawinayaan inay ka daaweeyaan waxyaabo badan oo jirka ku qarsan, ha ahaadaan cudurro ama virus jirka ku dhagan. dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhalan kara biyaha cabistooda oo qofka uu ka gaabiyo dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah tabardaro guud oo qofka ku timaado guud ahaan jirkiisa. qofka oo ay la soo darasto dhibaatooyin xagga dhaqdhaqaaqa caloosha ama ku imaada calool xiran. sidoo kale qofka waxaa ku imaan kara cudurro kala duwan sida cudurrada ku dhaca keliyaha iyo kaadi mareenka. sidoo kale qofka aanan qaadan biyo ku filan hargiis wuxuu noqdaa qaleel, deedna waxaa ku imaada jeexjeex, laalaabka wejiga iyo daal. meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba oo jecesha inuu muuqaalkan uu ka faa'iideysto share garayna. ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabta? fadlan subscribe dheh YouTube channelkayga, sidoo kale like dheh page-kayga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo cashiro cusub oo aan goordhow soo gelin doono. wixii su'aalaha iyo cudurrada aad doonaysid inaan ka soo hadlo waxay ugu soo diri kartaan emailkan. intaas ayaan ku soo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala